ماما مريم إسحلقان واي هويك كان عاوة عادي ما أهن حفيزكي رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أيك كيتي هدي يدي أقول قالي سنة ما موي دبات إيغا صومتي ميزان حقا لما ميكاري منك جنة مولاها كديرو منك جنة مولاها كديرو عطوش يرى لك مدن عوا أروس كيس قرحدي وقفة اللي يعزك إن أنتِ كوهشان نصيبي هذا أي شيء عاوة أنا ميكروفون كما قولين يصير هاي أولاً وحان سلامية مرت شرفتك للدوغن إيجا أخبر شيء إني كسوق يبقشو حفلة شرفت له وعاوة هبينكي إيجا أروسكا سلوك له وحان أمها العلنية تلي فرحان قرول لغة دير أسد يسلوك له تمام خديجة محمد ديرية هو يدي معان فاضل الشيخ موسى علي داوود وريرتي gabadha xildhibaan xasan eelay saaxiibkii xasatoob marti sharafta kala duwan iyo cid walba fanaaniinta dadka caanka ah caawo kala caadi ma ahan haye way socotaa markan haye wax baa ka dhacaya waa soo galay hadduu fadhiisanaya markan waxaan u yeerayaa oo hadiyad qaaliya guddoonsiinaysa xafiiska ra'iisul wasaaraha ay ka socotaa أهنا أقاسمها إسحلقان يا سلام ماما مريم ملف في ملف هويو في هويو هويو قيمة أدوية اللي مركز مجلسي وممكن يميزان له تعليم تاني ويكسر بعدهم معاه هذا يا لقدون سينا يا هدية ديسا هذا يا لقدون سينا ويسعتا وقدومي سماها وقدومي وأمات علينا يا ماما مريم إسحلقان taageerayaasha hal mar shacabka loo shubo maamada way socotaa maama Maryam Isxilqaan waay haweenka kan caawa caadi ma ahan xafiiskii ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayay ka keentay hadiyadii ugu qaalisaneed maama ku soo dhawayntaada tagin khudbadaada inoo raacay bismillaahi rahmaani rahiim فادم ويلكم بسم الله الرحمن الرحيم وحنون أني مدمشان حنبلي إن عندنا ويل كان عطاشرة يا قبل ديسة مصلحة دير وحنلنا جور كي نجور غير جور نجي عطاش يا حسن طاب يا جروب كلو هالكن أوجده وحي إجلا شقيان أنا مها بالشدة وريسكم الجرو وريا مديا لبا معها ورياش way kala yihiin qaara naftooda maalkooda dhiigooda iyo dhididkooda u huro inay bulshada u shaqeeyaan xasan waa tababare waxaan dhihi karaa tababare ayaa tahay waxaan dhihi karaa waxaad soo xareysaa dhalinyarada meelaha ku dhuuqda daroogada oo tababartaa oo wariyaalka dhigtaa waxaan dhihi karaa maqaayadaha intaad tagtaa marketing u sameysaa waxaan dhihi karaa dadka shaqada la ayaa shaqo u raadisaa waxaan dhihi karaa waxaad tahay macallin saxaafadeed ninkii raba inuu saxaafadda heer ka gaaro xasan toob ku dabadayo iyo ardayda uu soo saaro waxaan kaloo la hadlayaa waxaan u jeedaa baabijay iyo group kaloo badan oo eedo wahay waxaan la hadlayaa tiktok ley waxaan leeyahay dagaalka hala joojiyo wax kale kuma daraayo waxaan leeyahay bara wadankeena iyo nafaqadiisa iyo barwaaqadiisa kalluunka buuxa badweynteena dhax seexdoo filma ka duuba sida adduunka u arko waxba dambe ha sameenin ha niigniikinin kalluunkeena dhexdiisa jiifo filinka duuboo dir maraakiibteena kor baabuurteena xayeesiin hoteeladeena xayeesiin wariyaasheena lak iyo faadme ay ka mid yihiin iyo xasan toob la tashta shaqaysta wadanku shaqo u baahan yahay in loo shaqeeyo idinkoo kale laakiin waa inaa wax fiican ka shaqaysiin wadanku waa inuu hore u maraa waa idin soo dhaweynaa hadal badan ma jiro caawa waa aroos ما هاي شيء إنه وريوك صار نقطع عاو عطاش من هذي كرتي عاو عطاش وحولي يجري ذيك أولها وعمس ما شاء الله أباه ما شاء الله كان دتك برامج ما شاء الله عطاش هو يدي سود وين إنها بريريس دياشي سديريس
انت اسقبته فرتوني ودقيدي ميه انت اسقبته وناق اياي مدنيهين محايا لو حاسس وحاودي بقى حسن طاب بلا سكن وحيران رقنا maamada isxilqaan way mahadsan tahay xafiiska ra'iisul wasaaraha runtii waa xukuumadda waxa way fulinta waaye marka hay'adda ugu sareysa fulinta inay la joogto waliba arrimaha bulshada waxaan ka shaqeeyno waa madadaalo waa arrimo bulsho dhalinyaradan dhan waxay ka shaqeeyaan waa madadaalo waa arrimo bulsho dadkay madadaaliyaan dad badan oo qurbo joog ah oo stress qolka isaga xirna ayaa maxaa la dhahaa dhalinyaradiina shaqay u noqotay dadkii kalena madadaalo u noqotay xasan laki ayaan ku soo dhaweynayaa marka caawa ku faraxsanahay maamadan waa fasaxeena الله يفسحه maamada la saabi fasax waay xasan laki taagan tahay dunidu way ku dhammaystiranto duca adaanti maama faaduma ayaan jecelahay lama iyo hal ku tuuro marka waa socotaa meen horta waa socotaa markaan catooshay waa socotaa iyo loo dhiiba mikrofoonka maamada waa u dhiibayaa hooyaday waaye sidoo kale gabadha hooyadeed iyo awaryarteed iyo sidoo kale dadkeeda way joogaan anigana dadkay way joogaan maama casey haddayna maqlaysa halkaan soo gaarto sacabka lagu soo dhaweeyo sidoo kaleente aniga dadkayga reer xamar way joogaan hooyaday ayaa hal iyo labo siinaya way soconaysaa markan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير آتي يعني أمهات عنا تاجرها عطوش إلهي أذن بركة إلهي أذن بركة وعاود ولا شيء حبس الشيخ موسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan u mahad celinaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin boqolkiiba boqol cadowgiina nacama Allah ka dhigo insha Allah waa ku mahadsantihiin taageeraha Catoosh yare sheega waalid sharaftiisa iyo qiimihiisa wayna la joogaan caawa soma maamoy dhibaad iga soo martay miisaan xaqa lama magi karee mininka jannada mawlaha ka dhigo mininka jannada mawlaha ka dhigo inanteena qurux badan titoraysa maslaxo gabdhaha kale ka magac iimuunad weyn iyadiibaa maslaxa haddana dejisa haddana xaq dhowraa maamo hooyo cadeey ayaan anigu magacaas la jeclaaday inaan ugu yeero hooyo soo dhawow inankaagii iyo gabadhaadii xurmadda iyo qiimaha badan aad isu siiseen caawa khalqiga intaa leeg iyo ka badan ayaa sii daawanaya cid gooniya iyo shaksi gooni ah cajab iyo cajiib meel walboo dunida saas ayaa looga dheexanayaa dee waa arooskii aroosyada waana aroos qaran hooyo soo dhawow hooyo cadeey mrs maslaxo hooyadeed ma da'weyno gugaydu ma fogaanin ayadoo yar bay hooyo guursatay haddana gabadheedu garabkeeda ah ayaa haddana caaway u guurinaysa hooyo malab baa taa qiimo badan soo dhow walaalayaal soo dhawaada waxaan idin sheegayaa maslaxo hooyadeed inaan ahay haddaan weynahay haddaan yarahaybo waxaan meeshaan ugu dacooynayaa labadayda cunug Catoosh yare iyo maslaxo saalax soo dhawaada hooyooyinkeena qiimaha badan waxaanu leenahay aad baad u mahadsantihiin hooyo sii dhawaada dhinaca heesaha iyo sugaanta macaan waynu gali doonaa fanaaniinteena sharfan saaxiibkay cabdi dhaanta ayaa jooga ismaan dayman iyo weliba walaashayda qaaliga fartuun balbalaarka fanaanada caan baxday oo xirfadeeda iyo xooggeeda iyo majaajiladeeda iyo fankeeda ay baraha bulshada ku joogtaa fartuun alla iyo ciisiga oo ku taagnaaba aadaan ku taagay